بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا channelka saadka aakhiro. qisadii gabadha walaasheen ee soo muslintay aynu idiin soo wadnay waxay inoo maraysay qaybta saddexaad ee qisadaasi waxay inoo joogtay gabadha walaasheen oo masaajidka tagtay oo sheekha su'aalo weydiisay kadibna baadariga jawaabihii ay heshay si ay uga xaqiijiso wax weydiisay isfahmi waayeen sidiina kaniisadda uga soo tagtay wixii qalab ay haysana ku wareejisay. haddaba waxaad guddoontaan qaybtii afraad oo ku bilaamaysa sida tan. raxmo oo qisadeeda ay ku soo muslintay ka sheekaynayso hadalkeeda sii wadata waxa ay tiri: markaan arrimihii aan la kulmay iyo daraasadii aan waday oo dhan aan soo afmeeray waxaa ii soo baxday inaan diinta islaamka qaato, balse waxaan doorbiday inta aan diinta islaamka gelin ka hor in aan qur-aanka karimiga barto. barashadii qur-aanka ayaan bilaabay. maalin walba 2 ilaa 3 suuradooda ayaan xifdinayay aniga oo kaniisadda si buuxda aan weli uga go'in. qur-aankii ilaaha ii fududeeyey. kitaabka qur-aanka kariimka oo dhanna waxaan ku xafiday 3 bilood iyo 20 maalmood oo keliya aniga oo weli aan tawxiidka ku dhawaaqin amaba aan qirin islaamnimadana aan qaadan. marka aan qur-aanka dhammeeyey kadib ayaan shahaadada qiray oo diinta islaamka ee quruxda badan ilaahay i waafajiyey aan soo galay. aabbahay iyo aniga jaamacadda ayaan wax ka wada baranaynay. waxaana u sheegay inaan diinta islaamka qaatay oo aan doonayo inuu igu daro nin muslin ah aniga oo ka baqayo nin diinta kiristanka aaminsan inuu dhanka aabbahay uu ii soo maro diintaydana iga fidneeyo. markaasuu aabbahay igu yidhi, diintayda oo aan ka baxa ayaa iga fudud in aan nin muslin ah kuu guuriyo. anna waxaan ku idhi, aabe waxaad doonto waad samayn kartaa, laakiin nin kiristan ah ma guursanayo. aabbahayna wuxuu igu yidhi, wiil aan u ballanqaaday in aan kuu guurinayo oo kiristana ayaa jira, kaas ayaan kuu guurinayaa ayuu igu yidhi. anna waxaan ku yidhi, marnaba lagama yaabo nin kiristana inaan guursado ayaan ku idhi. adiga oo wasaqoobay inaan ku arko ma doonayo ayuu igu yidhi aabbahay, oo uu ula jeedo adoo muslim noqday inaan ku arko ma doonayo. anna waxaan ku idhi, anigu ma wasaqoobine, adiga ayaa waddo khaldan hayaa oo aan ka naxaa waxa aad diin ahaan u haysatid. aniga ilaahay ayaa waddada xaqa ah igu sugay ayaan ku idhi. si aan u buriyo go-aanka aabbahay uu ku doonayo inuu nin kiristan ah uu ii guuriyo, waxaan maxkamadda shareecada Addis Ababa aan ku guursaday Axmed oo ah wiilkii diinta islaamka isoo baray. haddaba raxmo markay xaaladeedu halkaasi marayso oo diinta islaamka qaadatay waxaa u bilowday dhibaatooyin horle. magaalada Baxirdaar oo ay waalidiintaydu deganaayeen ayaan u aaday si aan daraasadda ugu dambaysa ee qalinjabinta jaamacadda aan u soo sameeyo, reerkaygana aan u soo salaamo ayay tiri raxmo. dantii aan Baxirdaar u aaday markii ay ii soo dhammaatay oo aan Addis Ababa u soo socdo ayaa waxaa dhacday aniga oo bas saaran oo ay qorrax adagna jirto, fallaadhaha cadceedda ee muraayadda ku dhacaya in ay indhaha igaga dhaceen, kadibna aan miir daboolmay. gaariga ayaana la iga dejiyey, waxaana soo miirsaday iyadoo biyo la igu shubayo oo ay dad badan i kor tuuran yihiin. wax yar kadibna waan fiicnaaday. safarkii ayaan iska sii watay. jaamacaddii aan dhiganayay ayaa nabadda ugu soo noqday. buuggii aan qorayeyna waan wareejiyey. qalinjabintayda markay ka harsan tahay 1 usbuuc oo keliya ayaa waxaa dhacday aniga oo jaamacadda u socda oo madaxtooyada agteeda maraya inay indhaha i madoobaadaan oo aan waxba arki waayey. araggii oo dhan ayaa iga tegey. waan iska ooyey. waxa igu dhacayna waan garan waayey, aniga oo garan la wax allaale waxaan sameeyo. dadkii meesha ka dhowaa ayaa igu soo ururay, waxayna i weydiiyeen waxa igu dhacay. anna waxaan ku idhi, waxa igu dhacay ma garan karo, fadlan jaamacadda Addis Ababa ayaan wax ka dhigtaaye jaamacadda i geeya. sidii ayaana jaamacadda la igu geeyey. kadib jaamacaddiina waxay geysay isbitaalka indhaha ee Minilik ee ku yaala Addis Ababa, waxayna ii sheegeen inay indhahayga waxba ka qaban karin. haddana waxaa la ii gudbiyey isbitaalka Korea ee gaarka loo leeyahay. isbitaalkina wuxuu jaamacadda weydiistay si uu ii daweeyo 950,000 oo bir oo lacagta dalkaasi Itoobiya oo ay indhahayga wax uga qabtaan. maamulkii jaamacaddana waxay dhaheen qalinjabinta kadib in ay lacagta iga shubayaan. anna waan aqbalay maadaama aan haysan wax kale oo aan kaga maarmo. saaxiibada iyo intii aan isnaqiinay oo dhan qalinjabintii ayay aadeen, kaligay ayayna igaga tegeen qolkii aan wada deganayn. aad baan u murugooday. waxaan isiri malaha ilaahay raalli kaama aha. waalidiintaydana ma oga inaan indha beelay, hase yeeshee teleefankayga ayay aad u soo garaacayeen. waxayna iigu yimaadeen jaamacaddayda si ay xafladayda qalinjabinta uga qayb galaan. aniguna waxaan ka cabsaday haddii aan u sheego in aan indha beelay in ay waalidiintayda ay wax iga noqdaan. si aan ugu sheego ayaana garan waayey. waddada keliya ah ee ii soo baxday waxay noqotay inaan go'aansado inaan isdilo. sariirihii isdul yaallay ee aanu ku jiifanaynay midda sare ayaan fuulay. koronto aan meesha ku ogaa xilligii aan wax arkayay ayaan qabsaday. markiiba korontadii way i tuurtay. sariirta geeskeeda ayaana madaxa ku dhuftay.
halka ay noo joogto qaybtii afraad ee qisadii gabadhii walaasheen ahayd ee soo muslintay iyo dhibaatadii ay diinta islaamka u soo martay. waa inoo qaybta shanaad iyo janalka saadka aakhiro. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.